السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وده أدي هذا ومهتمين ما أنت وأربعه كوبي لباتنك بيش شماد ماي سنة كلابدا كون يشان يلا باتنك وقال كم حرب إن نذكره وجودك وجوه الرئي أمريكا كسيم متدوع ما يري وحندون إن وضن كينين ندب يقول لا والله أو نسمع سافرنا أو دولة أمريكا كأي ديارات صارتي إسلام كان هو دمدودي أي كذا جسي dhinaca kalena maamulka Trump ayaa 8 nin oo qaarkood Asia waqooyiga America iyo koonfurta America ay ka soo kala jeedaan waxa uu u masaafuriyay wadanka South Sudan iyadoo garsoore uu ku amray in aan dadkaasi la masaafurin karin arintaasi wasaaradda amniga gudaha ayaa goor dhow ka hadashayna waan idin la wadaagaya raggaasina wadamada ay ka soo kala jeedaan sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhaw bishii saddexaad ee March maamulka Trump inuu ku dhawaaqay barnaamijka la yiraahdo self deportation ama qofku inuu si iskiya oo isku masaafuriyo haddaba wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in 64 qof oo iyagu si mutadawacnimo doonaya in wadankooda dib loogu celiyo in diyaaradii u horeysay la saaray oo wadamadoodii dib loogu celiyay waxa maalgelinaysa dawladda oo dadkan diyaaradda saaraysa isla markaana wadamadoodii ay u dhasheen geynaysa iyadoo sidoo kalena lagu dhiirigelinayo dadka wadanka sharci darrada ku jooga in si iskooda isku masaafuriyaan isla markaana wadamadoodii ay ugu laabtaan barnaamijkan waxaa loogu magac daray Project Homecoming ama barnaamijka guriga noqoshada ama dib ugu guriga noqoshada iyadoo madaxweyne Trump uu wado in dadka sharci darrada wadanka Mareykanka uu ka masaafuriyo marka dadka soo galootiga waxa laga bixinayaa tikitka ama diyaarad free ayaa la saaraya lacag $1 oo gunna ahna waa la siinaya hadii kale waxa ay dooranayaan hadii ay diidaan inay si iskooda isku masaafuriyaan in la xiro xabsi la geeyo isla markaana ganaaxyo lagu rido kadibna la masaafuriyo marka diyaaradii u horeysay oo dad iyagu si mutadawacnimo doonayay inay wadankooda dib ugu laabtaan ayaa dawladda Mareykanku waxa ay isniintii ka baxday magaalada Houston ee gobolka Texas waxaana saarnaa 64 qof oo ka soo kala jeeda wadamada Colombia iyo Honduras waxa ay wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay dadkan in si mutadawacnimo ay ku doorteen in wadankooda ay dib ugu laabtaan laakiin howlgal ciidamada ICE ay sameeyeen aan lagu soo qabanin marka 64 qof 26 kamid waxay ka soo jeedaan Colombia 38 waxay ka soo jeedaan wadanka Honduras marka hal diyaarad ayaa la saaray oo labada wadan isku martay waxaan ognahay bishii March maamulka Trump inay ku dhawaaqeen abka la yiraahdo CBP Home oo qofku uu buuxin karo isla markaana uu iska diiwaan gelinayo informationkiisa uu gelinayo hadii uu doonayo inuu wadankiisa dib ugu laabto marka qofku markaas kadib walaad dejinaya inuu wadankiisa dib ugu laabto lama xirayo wax ganaaxana lama kulmayo sidaas darteed marka ayaa hadda barnaamijkan Project Homecoming ilaa iyo markii lagu dhawaaqay waxa ay noqonaysaa in dadkan iyagu si iskooda ay isku masaafuriyaan oo aysan jirin in qasab lagu masaafurinayo oo wadanka looga saarayo haddaba isniintii ayaa diyaaradan Houston ay ka kacday 64 qof ayay waday dowladda Mareykanku marka waxa ay siisay $1,000 markii wadankooda ay cagaha dhigeen dad soo dhaweynaya kaarar ayaa lacagta loogu shubay sida qaar kamid ah dadka halkaasi tagay ay sheegeen markii ay tageen wadankooda intii aysan airportka ka bixin lacagtii $1,000 heed ayaa la siiyay marka dawladda Mareykanku waxay tiri inaan qof soo qabano oo aan xirno isla markaana masaafurino waxa nooga baxaysa lacag gaaraysa $17,121 laakiin qofku markuu isku masaafurinayo lacag ilaa $5,000 ayaa ku baxaysa marka 70% lacagta canshuur bixiyaasha ayaa la badbaadinaya wasiirka amniga gudaha Kristen Noem waxay tiri waxaan ugu baaqaynaa dadka sharci darrada wadanka ku jooga inay si iskooda isaga baxaan qofku markaasi dib ayuu ugu soo laaban karaa Mareykanka qaab sharci ahaan laakiin hadii ay diidaan dadka Mareykanka sharci darrada ku joogo ganaax oo halkii maalin $998 ayay la kulmayaan waan xiraynaa waan masaafurinaynaa Mareykankana dib uguma ogolaaneen in xitaa qaab sharci ah ay ugu soo laabtaan marka qofku haduu isku masaafuriyo waxa macquul ah haduu qoyskiisa inay u dacwoodaan oo Mareykanka uu ku soo laaban karo laakiin hadii lagu masaafuriyo qasab lagu masaafuriyo Mareykanka waliga dib ugu soo laaban kartid ayaa wasiirka amniga gudaha Kristen Noem ay sheegtay Trumpna sidoo kale arintaasi horay ayuu u xaqiijiyay marka dad fara badan ayaa jiray oo iyagu si shakhsiyan u laabanayay laakiin waa diyaaradii u horeysay oo dad wadankoodii doonayay inay dib ugu laabtaan oo iyagu abka CBP Home iska diiwaan geliyay Mareykanka uu diyaarad saaro wadankoodii uu dib ugu celiyo dhinaca kale
bishii lasoo dhaafay waxaan ogeyn in garsoore federaal oo maamulka Trump ku amray in dadka la masaafurinayo wadan aan wadankoodii ahayn oo wadan saddexaad ah aan loo masaafurinin. Haddaba shalay ayaa garsoore fadhiista Boston oo federaal oo la yiraahdo Brian Murphy waxa uu yiri waxaa jirtay in rag uu ku amray in aan wadanka laga masaafurin in dowladdu ay masaafurisay. Raggan marka waa 8 qof oo dowladda Mareykanku ay sheegtay inay ku eedeysnaayeen dil, kufsi, dhac ama dambiyo kala duwanba ay ku eedeysnaayeen, waxayna kasoo kala jeedaan wadamada Cuba, Laos, Mexico, Myanmar, South Sudan iyo Vietnam. Marka garsooruhu waxa uu yiri qaar ka mid ah qareenadii dadkaasi ayaa ila soo xiriiray, xabsiga ay ku xirnaayeen ayay dadkaasi la xiriireen, waxayna doonayeen inay la kulmaan, waa ay waayeen. Qofku markuu xabsiga ku xiran yahay informationkiisa waad helaysaa, informationka ay waayeen. ICE ayay la xiriireen, ICE-na waxay ugu soo jawaabtay South Sudan. Marka dadkii waaba la masaafuriyay 8 nin oo garsoorahan uu ku amray in xabsiga ay ku sii jiraan wadankana aan laga wadi karin ilaa iyo kiiskooda dhinaca u dhacayo. Dowladda diyaarad ayay basaartay, waxay tiri wadamadoodii waa ay diideen dadkan maadaama dambiilayaal ay yihiin inay qaabilaan, anaguna Mareykanka kuma sii hayn karno. Sidaa darteed wadanka South Sudan ayaa aqbalay, wadankaasi ayaana loo masaafuriyay. Marka wasaaradda amniga gudaha hadda arrintaasi waa iska difaacday, inkastoo wadanka Suudaan hadda la leeyahay dagaal sokeeye ayaaba ka socda, haddana dadkan ayaa loo masaafuriyay. Marka waxaa la leeyahay qaarkood xitaa luqadda Ingiliishka ma yaqaanaan si loogu hadlo, sidaas darteed ayaa waxa wadan laga dejiyay wadanka South Sudan. Wadamadaasi ayayna ka kala yimaadeen, waxaana garsooruhu uu sheegay in dowladdu ay ku xadgudubtay amarkiisii ahaa in raggan aan wadanka laga wadi karin, iyo sidoo kale amarkii kale oo ahaa in qof wadankiisii maahana wadan kale oo saddexaad aan loo masaafurin karin. Marka maamulka Trump waxa uu leeyahay anagu dadkan dambiilayaal ay ahaayeen, wadamadoodii waa ay diideen inay qaataan, sidaas darteed waxaan u masaafurinay wadankaasi oo naga aqbalay inaan geeno. Marka South Sudan hadiiba dad la geynayo, Soomaaliya maxay u jirtaa? Waxba uma jirta waayo. Sidaas darteed ayaa hadda dadkan South Sudan loo geeyay, iyadoo weliba wadanka South Sudan aan ognahay in dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan. Marka garsooruhu waxa uu leeyahay wasaaradda waxaan uga baahannahay caddayn. Afhayeen u hadlay sidoo kale wasaaradda amniga gudaha oo Paris la yiraahdo waxay tiri dowladda Mareykanku ma aysan ku xadgudbin amar maxkamadeed, iyadoo garsoorahana uu leeyahay xadgudub ayay dowladdu samaysay oo dadkaasi iyadoo la amray inay wadanka sii joogaan ayaa wadan saddexaad loo masaafuriyay, isla markaana sidoo kalena la yiri aan la masaafurinin ayay dowladdu masaafurisay inta kiiskooda uu dhinac u dhacayo. Arrimahaasina waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo baxa. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.